معاذ بن جبل رضي الله عنه أصغر لباتن جرة أي النبي صلى الله عليه وسلم أدري يمن لباتن جربوها أنك غربان هين لباتن جرة وما شاء الله تشيز برجر كدرجي ومالي والبدل بدل بيتزا هات وكنول waxay ku nool yihiin nolosha ninka gaalka uu dadaala iskuul buu tagaa wuu shaqaystaa shilin buu dul saaraa wuxuu radaa maalintan retirement aan galo waxaan doonayaa meel yaroo nadiifa aan seexdo waxaan doonayaa cunto yaroo wanaagsan oo aan cuno waxaan doonayaa meel yaroo bilaa buuqa guri yaroo isku jamjamaan doonaya imika caruurteeni ayagoo 20 jira ayay retirement wada galeen wa xaqiiqatan waxba ma qabto iskuul ma tago wax ma shaqaysto habeen oo dhan sida fiidmeerta iyo sida uu wareegaya war ma booliis ba maxaa ka lifay maalin oo dhan uu xurinaya subaxdii ba markuu gaadho habeenka markay gaadho ayuu soo kacaya maghribka habeen oo dhan uu soo jeedaa subaxdina uu hurdaa Muaad bin Jabal markuu 20 jir aha ayuu nabigu sallallahu alayhi wa sallam war orado Yaman adugu noqo qaaday oo diinta soo ولا باتنجر والله وان كشيكيه اسلام مر بي لا سو هداش markaasay waxay tiri hooyo waxaan maqlay in yarku jecel yihiin saari haye hooyo waxaan doonayaa mid yaro miskiin oo dhalay oo aan soo koriyay in digala hadashid hooyo maxaan ku raahdaa ninka waxaad ku tiraahdaa hooyadana maqal ilaahayna ka cabso saari hooyo yarku ma shaqeeya hooyo ma imka ma shaqeeyo iskuul ma taga hooyo iskuul ma tago muxuu qabtaa daw iska hurda guriga hooyo ilaahay barakeeyo oo cuntada yaasiya da ana yar isku dubarida oo mariyaha yaa u meera da ana kalma nadiifiya maqsinka hay muxuu qabtaa waxba waa imsa jir hooyo waa 3 jir sharo dhashay ma sha Allah tabarakallah wallahi ilaahay baka marxaatin 3 jir warkada go'aan 3 jirka ee ilmaha yar islaantani Muaad bin Jabal wuxuu ahaa qaadi ay yawm budka kala saaray oo kala garnaqay wala xaq baad leedahay adna waa lagu leeyahay wareexka meesha waxay wa tarbiyada ku xiranta